Dhibaatooyinka iyo aafada isbeddelka cimilada waa mid si weyn looga dareemayo guud ahaan caalamka, gaar ahaan dalkeena, waxaana sababa wareegga dhulka, hawada oo wasakhaysan, heerkulka oo kordha, iyo siyaabooyin kale oo fara badan. Waxaana laga dhaxli karaa nabadguur ku yimaada nafciga dhulka iyo xoolaha, cudurro aan la aqoon, abaaro iyo fatahaado oo aan la aqoon. Inkastoo waddanba si uu u saameeyo isbeddelka cimilada, haddana dalkeena Soomaaliya sanadkan wuxuu ku sababay roobab xooggan oo xambaarsan fatahaado fara badan oo dhibaato ku haya danyartii dalka. Gobollada koonfureed ee dalka waa halka ugu badan ee ay ka da'een roobabka, lagana dareemayo saameynta fatahaadaha. Magaalooyinka Baydhabo, Bardaale, Xudur, Afgooye iyo kuwo kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed waxaa si weyn uga muuqanaya raadadkii fatahaadaha iyo khasaarihii ay geysteen. Markii ay bixiyeen qayladhaan shacabka reer Koonfur Galbeed, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Garaad Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa u saaray guddi heer dowlad goboleed oo u khidmeeyay dadka ay saameeyeen fatahaadaha. Guddiga ayaa xusul duub u xirtay sidii ay u saacidi lahaayeen shacabka ku xoolo iyo hanti beelay biyaha fatahaadda oo ehelada magaalooyinka qaar ay ku waayeen carruur iyo waalid. Waxayna ay gaarsiiyeen kaalmooyin dhan walba leh, taa oo ilaa iyo hadda weli socota, sida ay sharaxayaan qaar ka mid ah xubnaha guddiga oo ugu horeeyo gudoomiyaha guddiga mudane Cabdinaasir Cabdi Caruush. maanta run ahaantii aadan ugu faraxsanahay in annagoo ah guddigii gurmadka fatahaadda inaan kaalmadan gaarsiino dadka ugu nugul degmada Baydhabo. maanta waxaa noo soo urgay 300 oo qofood. insha Allah dadaalkaas waa wadaynaa, isbuucan intaysa dhammaan waa ku daraynaa. lacagtan lagu soo gaday raashinkan waxaa bixiyay wasaaradaha iyo shaqaalaha u shaqeeyo dawladda iyo heer degmo, ciidanka booliska waxay ku dareen, iyo ganacsato aan rabo inaan ka xuso xildhibaan Bishaaro oo run ahaantii qayb weyn ka qaadatay. dadkaas dhan u mahadcelinaa, ilaahayna bedel khayr qaba ha uu bedelo. waxaan rabaa inaan degmada si gaar u mahadceliyo inay soo xuleen dadkii u nugulay ee bulshada, ha noqoto bulshada baayaha gaarka qaba, dadka waayeelka ah iyo qaybaha u nugul bulshada. ma noqonaysa markii u dambeysay, waa markii maxay ahayd marka anaga isku tashanno ayaa ilaahayna garab nasiinaya. hawshan insha Allah waa shaqaalaha dawladda iyo dadka saaxiibada dhan lacag ka aruurinaynaa, wixii aan helnana saasa dadka loo gaarsiinaa. waxaa jira degmooyin kale oo ayagana target noo ah sida degmada Bardaale iyo Xudur. ayagana insha Allah waxaan jecelnaa isbuucan inaan lacagaha aan aruurinay qayb kamid ah aan gaarsiino. mayba oo deeqday oo qoyti sadma 776 korton oo timar guddiga fatahaadaha dawladda Koonfur Galbeed. mayba si toos ah ku wareejiyaase dawladda hoose gudoomiye-xigeenka degmada ahna kasimaha gudoomiyaha degmada Baydhabo wadana tigaab kulay waa ku araga hayta alaabtii lu wareeg insha Allah waxaad saas dhabaataysanaay oo roobka dhibaatada saameynta roobka ka waaliday oo dadkan ka liididi yaagee kan tamay buu raashin la kasiyahay dadkaas oo tirado diiraaso 300 qoys oo dadkan ka liidido dadka baahiya gaarka qabo dadka arday may buu an ka liida xaafadaha qori yaagee kan tala kasiyahay raashinkaas oo haas ku aruuriyeen wasaaradaha dawladda Koonfur Galbeed, wasiirada iyo wasaaradaha maamulka degmada Baydhabo iyo dadkaas ku aruuriyeen iyo raashinka dadkan tabaalaysan la siihayo aan alla intii raashinka dhiibati ma ilaahay ku toona in ilaahay bedel soo khayr qabo ilaahay siiyo qof kasta oo arday jaabshi walka jaraan ani isu ka daydo ka baaqaan marka dad walaan inta diyaalo oo dadkan geeka tabaalaysan isan illi araga haytaan hay'ad masiin dadkan mas'uulka ku haya isku aruuri lan kas jaabshi yak dhiibi yak dhiibeen ya raashinka kale ka dhiibahay ما لها جزاك الله خير
ilaahay maalkin siin barakaay ilaahay awlaadin siin barakaay marka ilaahay siin dhabaad siin kuriyasin lana lankastana may ka baaqana ani ka daydo eediyada ma baydo dadkan ka liidii way oo baahiya gaarka gobay waa sidii la ka ballamay oo iyo gudiga magacaawi madaxweyne Cabdicasiis gudigii gurmudka magacaawi madaxweynaha ballantama haytay in dadkan ka liidido wala gacantooda ka dhiyaan eliyan ka araga haytaan geek dadkan ha holi eeda ilaahay ma hadda isku la eedan ka mahadnaqaana assalaamu alaykum alla nabiga bacda wasiirada iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada saraakiisha iyo hay'adda Hassan walaalahayna Turkiga wasiir Fanax iyo media dhamaantiin salaamintiin salaan kadib ma fadaa in ka dheerada laakiin way leefaday hadal kooban la in ugu mahadnaqna walaalahayna Turki oo dhibaatadan reer Baydhabo reer Koonfur Galbeed kadhiidi inahan gurmadaan inahan gargaaran yani inaha ku jawaabaan codsiga adduunka dhan la wadaagni marka eedeeda ma hasanyin dadkan hadda geeka meelan uu ka caawiyayna roogan dadkii way wax xaafadoosha ku barakaheen biyo isaamayeen yoon ha arageen meelaha ku barakahay oo biyo isaamayeen xaafadoona ha tusni ha arageen way arageena lama xarumad oo la ku guuri oo biyogi wili fidiyaan oo roobka wili bilamadii baranka dambe isu qubana yaha korsurumeen dadka marka una hadda geeka una يعني اللي تبغى الكلام ولا لك سياحة دتك حافظ وقص حكو بركة عينه دتك بيوجي حكو بركة عينه دتك ديريو إني دبك ديري مركا أتليستي مركا ولا جو يعني سيننا نهين سين قرب سورنا ولا سينسان إن الران كمان نجارة الدولة دهان ويكون رجعنا إنتاعو إنك بدن إنك ما هاد نجارة تركنا ما هل ما مدعون ويحسسنا لما دو يكوي تمونكي حلو سمار بلينكوي كورن إني رجب طيب أردوغان سومالي سكوي كدبنا عالم كديري إني يكويان سوماليا يجرجارن ما markii in ka horeeytay marka eedanka mahadaan walaalan Turki garab surugna way maanta farxad ay noo tahay in markii saddexaad aan raashin gargaar aan gaarsiino dadkii fatahaadaha ay saameeyeen ee ku noolaa degmada Baydhabo gargaarkaas oo naga soo gaaray walaalaha reer Turki oo weligooda runtii garab taagnaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan si gaar ah shacabkan reer Koonfur Galbeed oo markii ugu horeysay maaha ay gurmuddan soo gaarsiiyaan weligooda ay garab taagnaayeen shacabka Soomaaliyeed shacabkan reer Koonfur Galbeedna ay garab taagnaayeen waan u mahadcelinaynaa gargaarka ayna soo gaarsiiyeen hordhac ah oo midkii ugu horeeyay ah fatahaaddan maadaama ay ahayd fatahaad runtii in badanna laga digay laakiin laslaha heerkan ma gaari doonto waxay ku noqotay cid walba oo gargaar la rabtay dadkan xilli degdeg ay ku noqotay marka inay soo hilqaameen oo ay noqdeen hay'adii ugu horeysay soo gaarta degmada Baydhabo oo dadkii shacabka ahaa mudnaa in wax la siiyana soo gaarsiiso waan ugu mahadcelinaynaa runtii dadka reer Turki waa dad walaalihiina ah oo weligoodana u danqan jiray dadka Soomaaliyeed dibka Soomaaliya haystana maanta kaalinta ugu firfircoon ka qaadanaya oo dadka caawinaya inta kadib guddiga gurmudka fatahaadaha Koonfur Galbeed ee madaxweynaha uu magacaabay wuxuu wadaa dadaal xoog leh oo dadka gargaar lagu gaarsiinayo meel walba ay ku nool yihiin guud ahaan degmooyinka fatahaadahan ay saameeyeen waxaan ka bilownay gargaarka magaalada Baydhabo waa gargaarkii saddexaad oo aan qaybino waxaan u mahadcelinaynaa shacabka reer Koonfur Galbeed meel walba ay joogaan mas'uuliyiintooda ugu sareyso madaxweynaha ugu sareeyo isgarab istaagii iyo isku duubnidii la muujiyay markii la arkay fatahaaddan xaaladeed inay aad khatar u tahay waxaan gargaar gaarsiin doonaa degmooyinka kale oo dhan dadka walaalaha ah reer Koonfur Galbeed waxaan ugu baaqaynaa inay iskaashadaan iscaawiyaan maadaama musiibadan xag alla ay ka timid degmo walbana ay sideeda u saameysay oo degmo maanta degmo kala dhaanto way u gurmanaysaa la dhaha aysan jirin sidaas la mid ah waxaan ugu digaynaa dadka degan jiinka webiga si gaar ah gobolkan Shabeellaha Hoose degmooyinka webiga uu maro oo dhan warbixinta hadda aan helayno webigu wuxuu soo wadaa biyo xoog leh waxaa laga yaabaa fatahaad xoog leh inuu sameeyo oo tii la garan jiray waayidii hore ka sii daran maamulada degmooyinkaas waxaan u sheegaynaa dadka inay wacyigeliyaan dadkana waxaan leenahay ka guura guryaha ku yaala hareeraha webiga ha laga guuro khatar xoog leh wataa xilli habeen ah adiga aadan filanaynin intuu biyo keeno
ilmihii uu kaa dilo adigii uu ku dilo waa halisteeday leedahay webigaas hareerihiisa ilaa muddo xaaladan inta lagu guda jiro dadka waa inay ka fogaadaan ay ka feejignaadaan dadkana waa inay iscaawiyaan kuwa guryahooda biyaha soo galay kuwa kale walaalahooda maalmahaas dhibka waa inay la wadaagaan oo ay guryahooda ku soo dhoweeyaan sidaas la mid ah magaaladan Baydhabo tirada ugu badan ee fatahaaddan dad ku dhinta magaaladan Baydhabo ay ku dhinteen wax keeneen waxay tahay dooxooyinkii waa la degay biimareedinii waa la degay guryo waaweyn laga dhistay walaalayaalow naftiina ha haligina ilmaha ha haligina haweenka ha haligina dooxooyinka meelaha biimareenada ha laga guuro ilaa iyo xaaladan lagu jiro waa dardaaranka dawladda waa amarka dawladda hay'adaha amnigana waxaan rabnaa kaalinta ay qaateen inay sii laba jibaaraan ay kormeer badan sameeyaan dadka ay tala bixin siiyaan meelaha biimareenada ah ay kormeeraan ciddii meel qaldan degan inta xaaladan lagu jiro inay u sheegaan inay meesha baneeyaan insha Allah taala waxaa naga go'an in ka guddi gurmud fatahaad ahaan meel walba oo dhibkan uu gaaray in gacanta dawladda koonfur galbeed uu hogaaminayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen inay gaari doonto haddii alla idmo aad iyo aad aan maasantiin anigoo ku hadlay magaca guddiga fatahaadaha dawladda koonfur galbeed waxaan rabnaa inaan meeshan ugu mahadnaqo dhalinyarada hogaanka dhalinyarada ee dawladda koonfur galbeed oo u istaagay in run ahaantii contribution iska soo aruuriyaan dadka deegaankii dhalinyarada iska soo aruuriyaan deeq maanta 100 qoys oo raashin lagu qaybinayo ay soo gaarsiiyeen meeshan waxaan leenahay aad iyo aad marka hore ugu mahadsantihiin marka labaad waxaan rabnaa dad allaala qofkii oo run ahaantii ka qayb qaatay taakuleentaaniiti ajir iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo sidoo kale idinkana waxaan rajeynayaa insha Allah taala in aad maanta aanan ku ekeenino asii laba jibaartaan dadka la taakuleenayo oo masaakiinta ah oo aad u liito biyahana ay saameeyeen inaan mar walba saan ugu taagnaataan sidoo kale waxaan rabaa inaan meeshan fariin ugu diro dhalinyarada guud ahaan stateeka meel walba ay joogaan in ay wacyigelinta ka qayb qaataan maalin walba nin dhalinyaro ah bari deegaankan aan ficil lahay in meel eber oo ku dhinto wax suurtagal maahan in laga wacyigeliyo dhalinyarada meelaha daadadka ee biyaha boodayaan ama ay ku cayaarayaan ee dhaxgalayaan in laga reebo laamaha amnigana ay kala shaqeysaan in dadka shacabka laga reebo goobaha biyaha ay fadhiistaan shalay oo kale waxaa jirta laba wiil oo dhalinyaro ah Allah u naxariistee ee biyihii qaadeen ayagoo ku cayaaraya meedkooda saaka la helay marka si dhibaatooyinkaas oo kale uga hortagno in wacyigelin sax ah ka qayb qaadataan meel walbana aad gaarsiisaan fariintaas oo ah in waalidiinta u sheegtaan in dhalinyarada iyo ilmaha ay ka reebtaan goobaha biyaha fadhiistaan si ay saameyntaan oo kale marka hore u soo laabanin waxaan rabaa ugu dambeyn in aan u mahadnaqo guddiga abaaraha oo maalmahan guddiga fatahaadaha oo maalmahaneed ayagana dadaalo sidaan oo kale waday masaakiinta dadka biyaha ay saameeyay gaarsiinay raashin ay ku noolaadaan sidoo kalena la qorsheenayo in la gaarsiiyo dhawaan deegaanada dhan ee koonfur galbeed ay saameeyeen fatahaadaha saas oo kale gurmadka la gaarsiin doono dhalinyarada dhammaan isku duubnaada kaliya ha ku ekaanina Baydhabo waa inaad gaarsiisaan dhammaan isteediyada dhammaan degmooyinka kale ay saameysay fatahaadaha annagoo garab idin ah insha Allah taala wax walba oo dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada ugu soo baahataan heeli hoona diyaari waaye sidoo kale dadaalada muujiya wada dadka oo meelaha biyaha ay fadhiistaan degan ha loo sheego in meeshaas deegaan ay ahayn ay raadsadaan goobo ilmahooda ku korsan karaan deegaan u noqon karto iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo hay'adaha Turkiga dhamaantii oo lana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hay'adda Xasani iyo tiimka oo ninkooy walaalaha oo Turkiga ciidanka mahnagaan oo raashinkaas hadeersi dadka oo fatahaadaha deegaanada koonfur galbeed dhibaatada deerti sadartii gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha xaafadaha magaalada Baydhabo iyaan ka mahnagaan in dadkii mudanaay oo raashinka laga targa iyo deersiyeen taasoo ku mahnagaan maamulka guud ahaan iyo taliyaasha ciidamada oo booliiska ku shaqeeyeen amniga iyo sidii dadkan oo si nabadle walaajo qaadada fadeen sadartii marka Baybalan wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka iniyo
qorshaha ka ekayna geed keliya laakiin mayba rajeen inay degmooyinka badan oo baayi bakool inay raashin deeri doon insha Allah sida wasaaradda gargaar qorshayaas mayba rajeen inay degmada xudur iyo bardaale iyo diisoor iyo waldeersi doon insha Allah wasaaradda gargaarka qorshahaas wada marka may rajeen insha Allah tiimka oo nolol shaqeeyahay guddiga fatahaadaha wasiirada kumida eedan kama nagaan oo 24 saac surinayay taasartiya marka hadhawaada xaaladaha dadka tabaalaysan ee saameynta ay ku yeelatay fatahaadaha qaarkood ayaa xilligan soo hagaagaya waxayna ay ka mahad celiyeen dadaalada ay sameysay dawladda koonfur galbeed iyo madaxdooda oo ay u muujiyeen si ay dhibaatada ula qaybsadaan walaalaha muslimiinta noo soo gurmadeen waa mahadsantiin deeqa inta ka halne bariis timir saliid walaalayaal dadka kale wax nacaawina hana soo caawiyo waa mahadsantiin ilaahay meesha ka soo baxda wax khayr qalo Allah geliyo bismillaahir rahmaanir rahiim loodan bariis saddex saliid timir nafsi ee kuma hasan ilaahay kala Allah sinsi mudeeday baa Allah sinsi tan korona iyo kumaadaan ilaahay kumaadaan iyo ku falaan aakin ma han diiray xoga nool maalmeed hatta wala han diiray dibka baasku yaal jidadkii hidinyin alxamdulillaah rabbil aalamiin maamulkaanu an ka mahdiyaan taas maxaa jeclaan lahayd in lidinku soo daro oo hadda baahidiin ay tahay oo ugu daran adiga isleedahay walaal ku daran may boodda hatta boose ma jira ijaare ka jira ilaa dhiig galay dad dul saaran jira dad illahay an kamid ah hatta idis arday biidumi hatta walaal dul saaran waxaana wali la saadaalinayaa inay soo socdaan roobab kale oo xoog badan kuwaas oo inta badan laga dhaxli karo dhibaatooyin hor leh waxna alla ka baryeynaa inuu ilaahay ummadda uu ka badbaadiyo waxaan ahay maxamed deeqseer jito idinkuna waad ku mahadsantihiin daawashadiina muuqaalka quruxda badan wuxuu idinkaga imaanayaa shaashadda KGS TV tani intaan barnaamijkan la mid ah aan hawada ugu kulmi doono sidaa iyo amaana Allah